Talk about yourself. What you have done in the last 5 days. Ka hadal nafsadaada waxay aad qabatay 5 maalin ee ugu dambeysay. Talk about yourself. What you have done in the last 5 days. At Saturday, I woke up at 5:30 a.m. Sabdigii waxaan ka soo kacay 11:15 subaxnimo. At Saturday, I woke up at 5:30 a.m. Then I offered a prayer. Kadib waxaan tukaday salaad. Then I offered a prayer. Kadib waxaan tukaday salaad. After, kadib I started waxaan bilaabay cooking cuna karin breakfast. After I started cooking breakfast, kadib waxaan bilaabay cunto karin. After eating my breakfast, kadib cunitaankii cuntadii aan cunay. At Saturday, I woke up at 5:30 a.m. Then I offered a prayer. After prayer, I started cooking breakfast. After eating my breakfast, I went straight to the work. Waxaan toos u aaday shaqada. After, kadib, I returned to the home. Waxaan ku soo laabtay guriga. I cooked dinner. Waxaan kariyay cashadii. Then, kadib, I watched waxaan daawaday TV, telefishinka for couple of minutes, xoogaa daqiiqada ah. Then, kadib, I went to sleep. Waan seexday. I went straight to the work. After I returned to the home, I cooked dinner. Then I watched TV for couple of minutes. Then I went to sleep. I went straight to the work. After I returned to the home, I cooked dinner. Then I watched TV for couple of minutes. Then I went to sleep. Waxaan kariyay casho kadib waxaan daawaday xoogaa daqiiqada ah telefishinka kadib waan seexday. On Sunday morning at 8 a.m. Axadii subaxdii markay tahay 8 subaxnimo, I went waxaan aaday to the work shaqada. Unfortunately, nasiib darro, my car was broken. Gaariga dhex iiga halaabay. My car was broken on the road. Gaariga wadada iiga halaabay. It took waxay qaadatay a long time, waqti badan to fix it in la sameeyo. On Sunday morning at 8 a.m. I went to the work. Unfortunately, my car was broken on the road. It took a long time to fix it. On Sunday morning, axada subaxdii at 8 a.m. markay ahayd saacada 8 subaxnimo ama 2 saac subaxnimo, I went waxaan aaday to the work shaqada. Unfortunately, nasiib darro, my car was broken on the road. Gaariga wadada iiga halaabay. It took a long time to fix it. Waxay qaadaday muddo badan si loo sameeyo. On Monday, I woke up at 6 a.m. Isniintii waxaan ka kacay 6 subaxnimo ama 12 subaxnimo. I started waxaan bilaabay to brush inaan cadeeyo my teeth ilkahayga. I started to brush my teeth. My sister was preparing breakfast. Walaashayda quraacda diyaarinaysay. I got dressed and gone to the work. Waan labistay kadibna shaqadaan aaday kadibna ama shaqadaa tagay. On Monday, I woke up at 6 a.m. I started to brush my teeth. My sister was preparing breakfast. I got dressed and gone to the work. On Monday, I woke up at 6 a.m. Isniintii waxaan toosay ama waxaan ka kacay 12 subaxnimo. I started to brush my teeth. Waxaan bilaabay inaan ilkaha cadaysto. My sister was preparing breakfast. Walaashay waxay diyaarinaysa quraacda. I got dressed and gone to work. Waan labistay kadibna shaqadaa tagay. On Tuesday, I woke up early in the morning. Talaadadii waxaan toosay alseydii. As usual, sida caadada ah, I started waxaan bilaabay getting ready inaan labisto
for the work ama aan shaqada u libisto. Then kadib I left waan baxay on 12:30 p.m. duhurkii 12:10 duhurnimo I had waxaan qaatay ama aan cunay my lunch qadadeyda with aan la cunay my co-workers shaqaalayaasha aan isla shaqeyno. At the afternoon galabtii I went waxaan tagay ama aan aaday to the cafe maqaaxida ama kafeega with my friends saaxiibadee. On Tuesday morning I woke up early in the morning. As usually I started getting ready for the work. Then I left. 12:30 on the 12:30 p.m. I had my lunch with my co-workers. At the afternoon I went to the cave with my friends. On Wednesday afternoon galabtii Arbacada after I returned the work kadib markaan shaqada kasoo laabtay we went waxaan aadnay to the local store dukaanka dariska ah to buy si aan usoo iibsano some grocery xoogaa khudaar ah. Later kadib we returned home waxaan kusoo laabanay guriga. We went straight to the kitchen waxaan toos u tagnay ama aan u aadnay jikada to prepare si aan u diyaarino dinner casho. We were expecting waxaan sugeynay ama aan rajeyneynay some guests xoogaa marti ah. After the guests arrived kadib markay martida imaadeen after kadib the guests were arrived waxay imaadeen martida. We served waxaan u dejinay ama aan u bixinay the dinner cashada. On Wednesday afternoon after I returned the work we went to the local store to buy some grocery. Later we returned home. Immediately we went straight to the kitchen to prepare dinner. We were expecting some guests. After the guests were arrived we served the dinner.